ay maanta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku yeesheen waxgarad aqoon-yahano siyaasiyiin haween dhalinyaro ka soo jeeda beesha Gaaljecel ayaa waxay gibahanba kalsoonida kala laabteen madaxweynaha dawlad goboleedka Hiirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusuble oo wali ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. waxgaradkan iyo aqoon-yahanada maanta kulanka ku yeeshay magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in ay gibahanba xaq ay ku lahaayeen maamulka Hiirshabelle ay ka waayeen taa darteedna ay kala laabteen kalsoonida madaxweynaha dawlad goboleedka Hiirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusuble. raggiiga horeeyay ayaa ka sheegay halkaan sida ay u sheegeen maxay ahayd maamul goboleedka Hiirshabelle oo mataqaanaa la suwaayay waxa la yiri meeshii cirliga suwaayay ceeryaama ka daaday waxay noqotay ceeryaamada ay noqotay waxaan doonaynay mataqaanaa in maamul wanaag iyo mataqaanaa horumar lagu tilaabsan ayaan doonaynay sida ay ka dhawaajiyeen ragga hortayda Cali Cusuble madaxweynaha Hiirshabelle wax badan ayaa isdaba marmaray wax badan aan tashi la sameeyay wuxuu diiday haba yaraatay inuu beeshaas kala shiro danaheeda maadaama mataqaanaa meeshaan ay tahay system ummadda u dhaxeeya oo mataqaanaa ay tahay oo qaybsan iyo ma garanaysaa ay tahay in maamulka la shaqadeeyay ay tahay waxa marka asaga go'aanka uu qaatay in la qaato ma aha ummadana waxay ku fiican tahay in wax la soo hambeeyo oo ma garanaysaa maamulka ma arkay la fiiriyo asaga wuxuu doon u sameeyaa inuu la tashto xataa xildhibaanada Hiirshabelle oo beesha Gaaljecel xataa inuu la tashto wuu diiday anaga marka maadaama ay taas ay soo gaartay waxaan go'aan ka qaadanay inaan tuutaalminta aan anagana aan kala noqono wax alla wixii kalsooni ahay waxaan meeshan ka sheegayaa magacii dadka waxa leeyahay Islaaw Roob la Qaasim Cismaan waxaan ahay Islaawii beesha Gaaljecel ee gobolka Hiiraan meel kasta Gaaljecel waxaan meeshan ka cadeynayaa Cali Cabdullaahi Cusuble oo shaqolaadeed oo isu dhibi Hiiraan ka sheegay meesha waxaan leeyahay Hiiraan hortiis waa dhaqmi jiray waa isjeclay walaalaas ahay soo magacawgiisa inaad walba isku dhiibo oo dab ka kiciyo waa ka xunnahay madaxweyne sharaf lahan maleeynay sharaftiisa ku xeeri meeshaan dab ku huriyo haya ilaahay idinkiis ilaahayna waxaan ka baryaynaa dabkaas inaad askicin inta kadib waxaan isleeyahay wuxuu noqday madaxweynaha Hiirshabelle midaan loo mareynino wuxuu damcay Hiiraan in isku dhiibo xilkan waa ooli jiray waa qaybsanaan jiray maamulka waa jiri jiray imaashihiisa isqa qabsi iyo isdil iyo daba orod iyo daba dayada imaashihiisa intuu dhex joogo gobolka Beledweyne dhibaato badan aan ka tabanaynaa oo arko haynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa saatiisa inay macnaha shar asilayna oo ilaahay ka baryaynaa waxaan isleenahay Cali Cabdullaahi Cusuble Hiirshabelle maalintii laga soo magacaabay madaxweyne loo soo magacaabay Hiiraan 14 qabiilad cidda qaabishay oo taageertay waxa uu horeey beesha Gaaljecel haddana waxaan cadeynaynaa wax xilkiisa ka noqdo oo uu horeey waa beesha Gaaljecel waa beel nabad jecel waa beel macna yaani la dhaqanka bulshada ogol dawladda federaalka iyo caalamka haddii arrintaas sida u dhaqso badan ay fargelin wayso waxaan cadeynaynaa inaan Hiiraan aan maamul degdeg ah ku dhawaaqi doono adduunkana laga ogaan doono caalamkana asaga Cabdishakuur Maxamed Xasan waa Bari TV Beledweyne.